kulanti wacan oo wanaagsan idil hayntiin bay ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha isku xidhka booliska iyo bulshada oo toddobaadkan dabcan aan ku eegayno dood cilmiyeed ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira shilalka iyo dhimashada iyo dhaawaca geysanaya isla markaana ka dhaca inta badan magaalada Jigjiga waxaana barnaamijkan igala qayb gali doona hadduu Allah awoodo ogolaado hay'adaha sharciyada dawladda sida xeer ilaalinta iyo booliska iyo xubin ka socday guddida la talinta booliska madaxa bannaan amniga ee maamulka magaalada Jigjiga waxaana jecelahay inaan barnaamijka marka hore aan ku soo dhaweeyo madaxa traafikada saddex degle Cabdullaahi Maxamed Salaad Cabdullaahi ku soo dhawow shilalka traafikadu soo badashadooda waxay ku xidhan tahay soo badashada gaadiidka sax waana wax iska dhaca normal shilalka traafikada asbaabo kala duwan bayna ku dhacaan marka anigu aragtida aan ka qabo iyo fikirkayga ku aadan shilalka traafikada iyo sababaha magaranaysa ay u soo badanayaan waxaa jira waddankana ku nool leeyahay Itoobiya guud ahaantiisa gaarigii u horreysay wuxuu soo galay 1907 muddo 100 iyo googo sano muddada intaas la eg shuruuc kala duwan baa gaadiidka ka soo baxaysa goldoleelo ka jirta xagga shuruucda gaadiidka oo ciddii magaranaysa u xilsaarayda ahayd inay soo turjunto shuruucda gaadiidka kala duwan ee 100 sano u dambeysay gaadiidka la xidhiidha soo baxaysay ilaa hadda hal sharci ah oo intii la turjumay bulshada la gaarsiiyay ma jiro horta waa qodob maxaa sababay marka adigu cid wixii doonaba ha sababo waxay ahayd sharci kasta oo gaadiidka la xidhiidha shuruucdiisa oo ka soo baxo dalka isla markaaba intii la turjumay in qaybaha kala duwan ee bulshada la gaarsiiyo sax si ay wax uga bartaan darawaliintu inay bartaan gaadiidleydu inay bartaan bulshada kale inay bartaan taasi waa qodob wacyigelin joogto ah oo deegaan ilaa degmo iyo qabale loo dhaadhiciyay inay jirtaan way ahayd oo shuruucda gaadiidka ee kala duwan lagu barahayo dadka sidoo kale goldoleelo iyaduna ka jirto ma garanaysaa tallaabo qaadista shilalka markay dhacaan ka bacdi ilaa iyo hadda deegaankeennu horta lama helayo xafiiska gaadiidka iyo jidadku hal dirawal maalinkii 30 sano asaasan yahay xafiiska gaadiidka deegaanka Soomaalida hal dirawal oo liisankiisii laga kansalay khaladaad u galay awgii looga kansalay ma jiro oo xagga tallaabo qaadista waa goldoleelo ka jirto iyo liidasho ka jirto weeyaan xafiiska gaadiidku waa inuu dabagal joogta iyo tallaabo qaadiyo joogta uu ku sameeyo gaadiidka goldoleelo ka jirtaas leedahay hadday tahay shuruucdii turjumi lahaa hadday tahay tallaabo qaadiyadu uu sameyn lahaa hadday tahay wacyigelintu uu sameyn lahaa hadday tahay media iyo kaleeto fagaaraba waa qodobka kale isla isaguna goldoleelo ka jirta dhanka ku dhaqanka sareynta sharciga oo caqabad ay ku yihiin dhaqamo iyo xeerar soo jireen oo deegaanku iska lahaa haddii aan tusaale ahaan dirawalka liisanka wata ee haadkii sharciga ah isagoo socda shilka galay iyo dirawalka isagoon liisan lahayn shilka galay ee waddada dhexdeeda shilku galay iyo darawalka intuu waddadii ka baxa waddo lugaadka ruux ku jiray ee shilka ku geysto go'aanka sharciga laga qaato hay'adaha garsoorka waxaa caqabad ku ah nidaamyo soo jireen oo xeer dhaqameed dadka deegaanka Soomaalida ay lahaayeen dirawalka liisankiisa haysta ee haadkiisa sharciga isagoo socda si keediisa wax u jeeda maxkamaddu inay dhahdo dambi ma laho sii deyso waxaa ka fudud inay sii deyso ninka liisanka aan lahayn magtiis ka bixiyo taas marka waxay u baahan tahay wacyigelin intii la sameeyo in aragtida guud ee bulshada wax laga bedelo waa qodob waxa looga bedeli karaa anigu sidaan islahay media-ga dawladda intii la adeegsado wacyigelin joogta in la siiyo waxba iskaga bedeli karo waa leh fagaarayaal waaweyn oo bulshada goob kasta ay ku badan tahay laga sameeyaan wacyigelin laga sameeyaan waxba iskaga bedeli karaan leh culimo oo diinka deegaanka laftiisa bal inay ka hadlaan dirawalka liisanka leh wax jiray iyo dirawalka aan liisanka lahayn wax jiray sharcigu muxuu ka qabaa horta ilaa ninna isagoo nidaamkii sharci buuxiyay buu si kadis shilka ugu dhacay ninna isagoo nidaamkii sharci wax ka dhameeyay buu shilka geystay sidoo kale gaariga baska ah isagoo rakaabka wato intuu rogmaday shilka geystay iyo gaariga xamuulka intuu rakaabka darawalku saaray shilka geystay
go'aanka sharciga ay helaan laftooda inuu kala duwanaado weeyaan go'aanadii sharciga ahaa marka shilalku ay dhacaan darawaliinta in laga qaada ahayd waxay ku salaysan yihiin xeer dhaqameed bay ku salaysan yihiin ninka taraafikada ee baadhaha shilka baadhahayo iyo ninka xeer ilaaliyaha faylka hayo iyo ninka garsooraha ee go'aanka gaadhahayo nidaamka xeer dhaqameedka caqabada ku ah intay aragti midaysan ka qaataan in fikirka la jabiyo waa loo baahan yahay waa qodob isaguna muhiim ta kale ee aan islaahay ma garanaysaa waxbay ka bedeli lahayd dadka mulkiilayaasha ee gaadiidka iska leh iyo darawaliinta ay u dhiibanayaan gaadiidka heshiisyo inay galaan loo baahan yahay baa jira heshiisyadaas waa maxay ninka mulkiilaha markuu nin darawal u dhiibay gaarigiisa u dhiibayo heshiiska ay galahayaan waa inuu ku xusnaado gaarigaygu waa gaari rakaab gaari xamuul maaha haddii shil uu geysto oo 25 ka qof ee sharcigu u fasixi wax ka badan asaarto oo shil ku yimaado mas'uuliyadda adiga iska leh aad baad mahadsantahay ku soo noqo halkayga iminka haatan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo dakhal Mahdi oo ka socday xeer ilaalinta dakhal fikirka uu soo jeediyay Cabdullaahi Seyd kula muuqata fikirku soo jeediyay oo xalaanta u arkay waa fikir haboon marka dhibaatada haddaan soo qaadano iminka waxyaabaha laga hortegi karo dhibka jira ama shilalka wax laga hortegi karo kow haddii aan ku salayno iminka shaqada booliska oo kale shaqada booliska kow waa waxa weeyaan waa dambi kortag weeyaan markuu dambi kortag ay tahay haddii uu dhacana waa laga daba tagaa waa after laakiin majority ama wanagu waxa weeyaan waa dambi kortag weeyaan dambi kortaga markaan soo qaadano waxyaabaha laga dambi kortag kara waxa weeyaan kow waa siduu soo sheegay madaxa taraafikadu waa wacdigelin bulshada la siiyo ta labaad waxa weeyaan dambiyada fudud ee ku xadgudubka xeer nidaamyada gaadiidka ee yaryar inay sideedii u howlgalaan ganaax la siiyo kuwa sharci la'aanta kuwa gaadiidka kuwa nidaamka meelaha dhigaya meelahan loogu talagelin kuwa wadada hanaanka xun u socda dhammaan effectiyada ay leedahayba in ay sideedii u horgaleen weeyaan taa daliil baa ka jirta daliishaasi waxa weeyaan kow hadda iminka taraafikada markaad eegto buugtii ganaaxa ma wada haystaan ya dhibaata marka dhacda jidadka taagan waa la soo garab dhigayaa baabuur markuu yimaado baabuurka uu hor dhigo waa baabuurka kale uu garab dhigayaa kii kale uu sii garab dhigayaa bajaasta isticmaasho weliba bajaasta waa dhaqanka xun ee iminka ay isticmaalaan wadooyinka lagu xidhaba taa waxa weeyaan qof kasta markuu helo ganaaxiisii ku xadgudbay ganaaxa yar xadhigna ma laha taasi waxa bit office la yidhaha waa dambiyada yar waa loo jarayaa un ganaaxiisii waxay noqonaysaa arrin tallaabo ka qaaditaana oo xadida ayay noqonaysaa waa kow tii wacdigelintuna markay fusho waxay noqonaysaa iyaduna waa dambi kortag iyo waa dadkii baa dee wax la siiyey aqoon sharci baa la siiyey ta saddexaad waxa weeyaan nidaam ay booliska ka wada xidhiidhaan xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga oo in loo sameeyo calaamadihii wadooyinka in out meelaha wadooyinka laga geli karo tilmaamay calaamadaha taraafika ay raacaan gaadiidku laakiin calaamadihii gaadiidka kama jiraan waa dhibaato dee waa dambi kortagaydu sooma arrintii dambi kortagaan ku jirnaa ila hadal waanu u geli doonaa baadhistii shilka dhaca weli waxaan ku jirnaa waa nidaamkii dambi kortaga ee ahayd inay functional noqdaan arrimahaasi waa xalkii solution waxaan ku jirnaa marka intaasi ay waxismaan waxyaabaha marka ay muuqdaan waa laga qaadi karaa tallaabo sideedana bajaasha oo keliya only waxay u baahan tahay iyada in si wacdigelin gaar ah iyo nidaamka sababtoo dhibaatada ugu badan iyada ka jirtaa waayo waxa weeyaan dadkan bajaajta wada itus baa la yidhahdaa meesha sida loo gelinayo sida gaariga loo dhaqaajiyo taasina waa problemka koowaad weeyaan iyadoo lagu kala xariyo qofka liisanle iyo qofkaan lahayn totally maadaama ay shil tahay uu dhibaato keensanayo istaan naftiisa ay dhibaato ku tahay iyo hantidiisaba waa in laga qabtaa dee qofkaan aan lahayn shati sharci inuu ku dhex wato magaalada baabuur waxaad arkaysaa dhibaatooyin ka muuqda wadooyin yarar oo laga gudbaa jira meesha gaari weyn baa ka istaagaya isagu ma arko dad buu ka istaagay wuxuu siiyey fursad buu siiyey dhaafa buu yidhi meelaha yar waddo laga baxo bajaaji ma istaagayso isagoo ordaygu dhaafaya markaa qofkii baabuurka kale ku jira ayay isugu imanayaan waddadii shirkiiba halkaa ku gelaya waa dhibaatooyinka la doonaya in si gaar ah iyaga bajaajta loo siiyo waadgelin xagga marka la yidhahdo shilka dhaca marka la yidhahdo shilka horta 3 arrimood baa la baraa waa 3 arrimood waxaa loo baaraa shilku wuxuu ku yimaadaa kow waa baadhista boolisku waxay ay ka soo saaraan gudaadka ka soo saaraan 3 arrimood shilkan ma waxa keenay waddada keentay ma gaariga keenay ma shakhsiga keenay 3 arrimood baa la baaraa 3 arrimood markay tahay
baadhista waxaa lagu saleeyaa istaatikada haddii ay waddadu dhibaato leedahay waddadii dee in uu shaygu lagu waxayso sababaha keena inay jidadka tahay haddii uu gaadhiga markaan ku leeyahay gaadhigu hadday tahay gaadhiga waa karkaari weyn isagoo socda ayaa brig laga way karaa oo lagu ogaa brig waa arrin accident oo markaa ku timid gaadhiga way keeni kartaa iyadana waa sabab ta saddexaad oo ah arrinta uu leeyahay ninka darawalka oo la xidhiidha taxadir darrada falgeedada shilka waa taxadir darro taa markay timaado boolisku way baadhaan balaankii sideedii bay kusoo waxayaan iyagoo laba nooc oo kalaa loo baadhaa waxaa la yidhahdaa tatic marmara technique marmara iyo tatic marmara baa lagu baadhaa labadaba iyadoo la dhammaystirayo in kasta oo jiraan weli dhaqan xumaa xaggeena dadkeena ka jirto oo sharciga hoggaansanaan la oo shilalka markay dhacaan way ogyihiin trafikadu ay qaar ka qaadayaan meeshii ma aha in laga qaado ilaa uu boolisku ay qaybtay baadhista timaado xitaa kuwan dambi kortagii ma dhexgelayaan ilaa uu baadhuhu yimaado baadhaha trafikadu ilaa uu yimaado in meesha calaamad wax laga qaado almala dhex gala maaha wuu ka dhaqaaqayaa qofka shilku markuu galo ka dhaqaaqaya taasina waa waxa weeyaan waa dembi kale uu sii gala weeyaan shilalka iyo waxyaabaha keena iyo nidaamka taraafikada iyo gaadiidka kow muhiimadda ugu horreysa horta waxaa weeyaan nidaamka la yidhahda statistiska nidaamka statistiska waa fuulka lagu cabiro dhacdooyinka shilalka iyo sababaha keena oo ku salaysan kow sanadka shilka dhacay waddadee ugu shil badneed darawaliinta shilalka geysta kuwee ugu shil badnaa da'dooda intee u dhexaysa weeyaan darawaliintaas gaadiidka shilalka lagu gala kuwee ugu badan intaa markaas hesho waxaa kuu soo baxaya natiijada dhabtaa kuu soo baxaysa tusaale ahaan haddii waddada maanta har iyo jigjigo u dhexaysa uu shilalka uu ku badnaa waddadaas xafiiska jidadka waxaa la weydiinayaa waddada dhiseenkeeda cabirkeeda waa imisaa inta sarraynta dhulka ay ka sarraysa waa imisaa waxaa lagala xiriirayaa xafiiska gaadiidka jidadka weeyaan xafiiska ganacsiga waxaa la weydiinayaa waddada calaamadihii taraafikada ee looga baahnaa oo digniinta iyo qasabkeed ma leeyihiin mise ma laha haddana waa in ayaga lagula xisaabtamo gaadiidka shilalka geysta hadday maaragtay noocay u badan yihiin la ogaado ayagana xal baa laga gaariyaa haddaa aan tusaaleeyo 2007 waddada harri jigjigo u dhexaysa waxaa ku dhimatay 144 ruux statistiska la sameeyey waa la sii dabagalay gaadiidka shilalka geysta kuway ahaayeen waxay noqdeen minabaas ay u badnaadeen 8 ruux marka laga reebo 144 marka 8 ruux laga jaro inta kale waxaa geystay gaariga minabaaska xilliga ayadaad xal baa laga gaariga minabaaskaaba in maaragtay ka uu dhaafin harar ayaa la soo saaray wareegta ah waa la joojiyey gaadiidka marka harar u baxa waxa uu yiraahdaa baabuurka la yiraahdo qidqidka ee isusuga sanadka dambe shirka aad buu u yaraaday waa la ogaa hadda isbedelka ka bacdi gaadiidka saga minabaasada way soo noqdeen maxawaara sababa horta statistics in waxaan lagu soo saleeyo oo maaragtay ilaa hadda annaga heer deegaan baan magaalada jigjiga baan joognaa laakiin sanadka shilka dhacay wadada u badnaa gobolku u badnaa horta in statistics wixii lagu saleeyo waa laga maarmaan si maaragtay sanadka dambe shilalka ayaga ah meeshii u badnaayeen iyo gobolku u badnaay iyo wadada u badnaay maaragtay ka hortag looga sameeyo tan labaad dhanka ganaaxa marka la yiraahdo iyo darawalka ugu yaraan maalinta 50 darawal waa la ganaaxaa jigjiga 50 darawal waa la ganaaxaa wixii waxay noqdeen laakiin waxa malas waxa qina waxa loo oran jiray xal wali lama gaarin ilaa oo darawalka uu xal u helo liisankiisa maadaama uu soo noqday dambiyadiisa in liisanka laga manaaco la yiraahdo gaari dambe ma ka xin kartid ilaa oo la helo taala gaaro xalka la heli maayo dadkana ma danayaan shaqada yoomiyahay danayaan shilinka ka baxaya ma danayaan runta marka la sheego taa waxa sababay hadduu shaqadiisu ku wayno liisanka uu wali wato shilinka yaro ganaxu iska bixin birina gaarigu wada khaladkan uu galaya marka muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan ilaa la gaaro liisanka in la manaaco dee xal lama gaarinay ka dhiganta oo darawalkan inuu gaari ka xayo ay manaac ka noqoto anu saas leeyahay markaas ayaa xal la helayaa aad baad mahadsantahay dhaqane waxaan rabaa inaan siiyo Axmed Ismaaciil Daahir oo ka tirsan guddida la talinta booliska madaxa banaan Axmed fikirka uu soo jeediyay laba xidig la dhaqane Xuseen seed u aragtaa maadaama barnaamijku yahay dood cilmiyeed ku saabsan
sidii xal waarta looga gaari lahaa caqabadaha ka jira shilalka iyo burbur hanti geysanaya inta badan magaalada Jigjiga ee ka dhaca. waxaan u arkaa fikirka oo laba xidig la dhaqana uu soo jeediyay in uu xal ku jiro waxyaabaha uu soo dhigay oo sida ku xisaabtanka wadada horta wadada shilalka sanadka ugu badan uu ka dhacay in la cabiro gaadiidka yacni shilku ka yimid in la kala saaro oo noocu yahay la ogaado dirawaliinta maaragtay shilka sababta u ahayd ma da'yarbaa ma dad waaweyn oo mas-uuliyad qaadi karaa in baaritaan lagu samayso cilmiyeysan lagu sameeyo horta waa mid waajiba waana soo dhoweynayaa fikirka anoo soo dhoweeyey waxaan ku darayaa ta kale loo baahan yahay waxa weeyaan horta dadka dhammaan deegaanka ama dalkaba ku dhaqan in la baro shuruucda sharciga ee gaadiidka waxaa loo bari karaa dadka shuruucda waxaa loo bari karaa in loo sameeyo wacyigelin badan oo ku dhaqanka sharciga gaadiidka iyo wadooyinka iyo darawaliinta iyo dadweynaha laftiisa sharciga iyaga laftooda qabanaya in la baro oo lagu wacyigeliyo ayaa loo baahan yahay aniga yacni fikir ahaantayda sababtoo ah haddii dadka laga dhaadhiciyo sharciga oo la wacyigeliyo horta gaadhigii inta u go'anee loogu jaray boonada 25 hadday tahay 22 hadday tahay 12 hadday tahay dadka rakaabka yeeli maayo wixii wax ka baxsan waayo sharcigii bay garanayaanoo gaadhigii in la buux dhaafiyo ma ogola dee iyagii baa taraafik ka ah marka waxaa la doonayaa dadka horta in shuruucda laga dhaadhiciyo waddanka u taalla ee gaadiidka sida wadooyinka oo kale bini aadan baa nahay xataa taraafika qalad geli karaa oo meel isgoysa ayuu baabuurta ku joojin karaayoo baabuurtii kalaa isku dhici karta anigu waxaan leeyahay horta shacabka waxa la baro si ay gaadiidka iyo taraafikada iyo dadkoo dhanba wax uga qabtaan sababtoo ah dadweynahoo dhan haddii taraafik laga dhigo oo sharciga waddanka u yaalla la baro shilalku way yaraan lahaayeen baan leeyahay sababtaasoo ah waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ninka taraafikii inuu ka maqan yahay meesha kolkuu ka maqan yahayna in darawalintan meesha joogta ee baabuurta waddaa mas-uuliyad aan loo eegin oo yacni kuwa khayral mas-uulaha oon mas-uuliyadba qaadi karin liisanka layska siiyey markaa sidaa darteed dadku haddii uu yahay dad bisil oo sharciga u bisil lagama yeelayo darawaliintu meelaha sharci darrada ay gelayaan lagama yeelaye waa la diidayaa iyaga kuwa dhulka socdaa qabanaya kuwa gaadhiga saaran baa qabanaya sharcigii baa la wada ilaalinayaa anigu waxay ila tahay fikir ahaan waxaa lagu ilaalin karaa oo shilalka lagu yarayn karaa dhammaan dadweynaha oo inta shirweyne loo qabto sharciga shilalka gaadiidka waddanka u yaalla in la baro wacyigelina lagu baro sidaasaa lagu yarayn karaa bay aniga ila tahay aad baad u mahadsantahay axmed ismaaciil daahir waxaan rabaa inaan iminkan siiyo bashiir oo ka socday xafiiska gaadiidka ee maamulka magaalada Jigjiga bashiir barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay dood cilmiyeed oo ku saabsan sidii xal waarta looga gaari lahaa caqabadaha ka jira shilalka maadaama magaalada uu ku soo badanayo shilka waxaa lagu yarayn karayaa horta ka xafiis ahaan annagu waxaan ku yarayn karaynaa xilliga boolada sanad canshuureedka ay gaadho gaadhiga waxaan weydiinaa marka hore intaanaan siinin canshuurta badqabkiisa kabacdi gaadhigii markaan xaqiijinay inuu badqabkiisu sax yahay ayaan gaadhigii ku soo daynaa magaalada inta badan shilalka waxaa geysteen baabuurta aan canshuurta sanadkii aan bixinin baa yaa geysta sababtoo ah gaadhigii hal sanaa la iska watay badqabkiisii lama fiirinin inuu bareegiisa shaqaynayo inay markii bareega la qabto ambooladii ay baxayaan lama eegin waxaa kaloo keeni karaya shilalka oo inta badan ay ku dhacdaa darawalkii wuxuu samaynayaa habeenkii oo dhan buu iska qayilayaa asagoo sidiisii ku soo jeedo oo qaadiradii ku jirto ayuu gaadhigii soo kaxaynayaa maskaxdii dee xalay oo dhan soo jeeday gaadhigii kantaroolkiisi way ku yaraanaysaa saas darteed isagoo xal oo dhan soo jeeday buu gaadhigii kaxaynayaa midda labaad waxaa weeye isagoon xeetaa shuruucdii aan buuxinin darawalnimo ayuu ruuxii gaadhigii iska kaxaynayaa inta badan hadda shilalka magaalada Jigjiga waxaa geysta bajaajkana waxaa ugu wacan dadweynaha dadka macnaha iibsanaya ugu wacan sababtoo ah hooyadii bajaajkii bay soo iibinaysaa
ilmaheedii yaraabay ku sasabaysaa oo leeda hooye magaalada gal intii laba beri meelaha la yar tustuso yaa isaga aan wadooyinkiiba kala fahmin meeshii inka ahayd iyo meeshii outka ahayd meeshii mataqaanaa traffic lightku markuu istaajiyey isagoon garanaynin markii la dhaqaaqay isagoon garanaynin magaaladii iska soo gelayaa ilmihii sidii buu ku dhaqaaqayaa gaadhiyadii kaloo cross check samaynaysu deedna markaa ay sidaa ku dhacdaa inta badan shilalku sidoo kale haddana waxaa lagaga hortegi karayaa shilalka inay ruuxii darawalka ahaa haba yaraatee beeltiga xataa hadduun xidhnayn in intii la qabto la ganaaxo oo waajibkiisa la mariyo hadday qaybta taraafikada noqoto wada shaqayn fiican baa annaga naga dhaxaysa ka xafiis ahaan waayo baabuurtan hadda ganaaxoodii iyo waxoodoo dhan waan ka wada shaqaynaa qaybta taraafikadaan ka wada shaqaynaa hase ahaateedee weli inta aan taraafikada la shaqaynayno weli waxaan dhicin ruux intaan ganaaxnay oon mar labaad ganaaxnay oon mar saddexaad ganaaxnay inaan liisankiisa saa kagala wareegnay weli may dhicin laakiin insha allahu maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda way dhici doontaa mar hadduu ruuxa darawalkii aan mar u digno oon laba loo digo oo saddex loo digo oo xataa ganaax loo raaciyo marka dambe waxaa iman doonta in laysanka laga xareeyo waana ka xarayn doonaa insha allah ruuxii waan toobi waaye aad baad mahadsan tahay bashiir cabdulaahi barnaamijka gunti iyo gabaga ayaan maraynaa waxaan rabay inaan halkan kaaga soo gudbiyo waxaa jira qorshayaal cusub oo istaraatiijiyada lagu horumarinayo xeerka iyo sharciyada gaadiidka dhammaan dalka oo dhan oo federaalka laga soo dhadhiciyay baa jira deegaankeenan waxaad moodaa in shilalka waayahan dambe ay ku soo badanayaan qorshayaashaas faraha badan see loo dhaqangelin karaa ka deegaan ahaan iyo ka taraafik ahaan bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aad u wanaagsan cabdinaasrow barnaamijyada iyaga way jiraan shuruucda cusub deegaanada kale dalkana mar hore ay ka dhaqangaleen deegaankeenana hadda dhaqangelintiisi baan bilownay haddaan in yar magaalada jigjiga iyo xaaladda dib ugu noqdo horta bishii 11 ilaa bishii 7 soddonkeedii 9 bilood reportigii statistiska gaadiidka la ganaxay haddaan eego 9315 darawal baa la ganaxay deegaanka 8,723,202 bir baa khasnada dawladda oo ganaxa gashay hadda bishan maanta 26 ee bishii 8aad magaalada Jigjiga kaliya reportigeeda haddaan eego 616 darawal baa la ganaxay ganaxa lacageeda khasnada dawladda galena waa 671,600 bir halkaas marka laga eego in talaabaqaadka uu jiro waliba uu aad u sareeyo ee natiijadeedan helaynaa caqabadaha jira marka waxaa kamid ah ciidanka taraafikada deegaanka inta la eg ee deegaanka Soomaalida hal askari oo wada taagan oo buuggii kiss charge ama warqadii ganaaxa ee baabuurka lagu ganaaxi lahaa lagu dacweyn lahaa darawalka wata jirto gaadiidka inta la eg waa gaadiid saldhigyada booliska oo intii lagu hakiyay iyagoo xidhan ganaax iska bixiyay way caqabadaas in la faray u baahan tahay ciidanka taraafikada meel kasta uu joogo buugaagta ganaaxayd ay wax ku ganaaxi lahayn in la gaarsiiyo u baahan tahay waa qodob waxa weeyaan shaqo lagu jiro dhaliil way ka iman kartaa wax wanaagsan oo ka iman karaa wixii dhaliila sideeda loo sii ciidanka taraafikada magaalada ka shaqeeya Jigjiga wadooyinkeedana cidhiidhi bay iskaga badan yihiin gaadiid tiro badan magaaladu jooga waa iska suuragal askariga laba beelaan habooleen gaadhigu ku joojiyay inay jirto iyaga laftooda waxay u baahan yihiin in dib u dhis lagu sameeyo sababtoo ah waa kabkab weeyaan waa in hadda isbedelka kadib xukuumaddan hadda jirta ay soo aruurisay isbedelka wixii ka horeeyay ciidan taraafik magaalada kama jirin deegaankana kama jirin ya tababaraha hadda mas'uuliyiinta taraafikada goboladan u yeernay ciidanka taraafikada deegaanka oo dhanna in dib loo tababaro u baahan yahay tababaro la siiyo tayadooda kor loo qaado waxbarashooyin kala duwan oo cilmiyada taraafikada la siiyo marka intanba hadda maadaama ay kabkab tahay waxaan isleeyahay isbedel baa ka iman doona halkaas qodobka labaad aan rabo inaan taabto isaguna waxa weeyaan technique marmaraaga waxa la yiraahdo ama caafimaadka gaadiidka badqabka caafimaadka gaadiidka waxa hadda ka horeeyay deegaankeenu ma jirin qalab wax lagu baaro caafimaadka gaadiidka lagu jagareeyo boolada gaadhigu ama hargeel la taagan ama doolow taagan ama wardheer taagan baa la iska sii jiray boolada hadda laakiin qalabkii baa la keenay taasna waxaan fariin ahaan ugu gudbin lahaa bulshada inay ka faa'iideystaan qalabkaas isaga lagu xaqiijinayo tayada ama badqabka gaadiidka sidaana boolada ay ku qaataan xafiiska gaadiidkana ay ma garanaysaan ay ku dadaalaan inaysan wax boolla asinin qof aan soo marin baaritaanka isaga gaadhi aan soo marin taasna waa taa marka si guud waxa weeyaan in ciidanka taraafikada laftiisa fiiro gaar ah dhismihiisa la siiyo ya oo la tayeeyo oo tir ahaanna kor loo qaado tay ahaanna kor loo qaado waa xalalka in la gaadho loo baahan yahay ugu dambeyntii anoo walaalkay madaxa taraafikada nidaamka kusoo gunaanaday anoo ugu mahadcelinaya waa aragti waa run waan saxaqijinay mar haddii yimaadeen marka
تكنيك مرمراجين هذه مادين وأرين فائدة إنه أبيتها أرنتو وشجعنا رون هانتي وحويان وحقيقيا نظام كإسبدل ككذب إن لكبعية ضدك نظام بيقى هذا السكاني هذا الفاكشني أنتي كوريسنا ترافق بوحلي لا كمتشر دقن كلا وانكراسنا مركا مادام إسبدل يدلال بدون وضان إنا كي أنسيحو تشنو أنا أركتي أهان إن شيل كردن إن جيتشنو أو كعدال هان فيسكا ما فيش لوجس وجود فيسكا باريستا لا حديدا سي أهلان قابتو ديكوا بونت waxaan ka galeynaa dadaal dheer aan ka galeynaa taasuna waxay ka mid tahay marka resultka la helo inay u noqon doonto jawaab maad garanaysaa in shayga dambiga oo meeshiisii la saaraa waxay dhimaysaa nidaamka dambiyada waa nidaamka statika lagu isticmaalo weeyaan marka aad iyo aad baan ugu celinaa dadka bulshada gaar ahaan dadka bajaajta watana waxaan fariin u farayaa inay la socdaan xeer nidaamka gaadiidka oo ay naftoodana ilaaliyaan hantidoodana dhowraan ummadana dhowraan hantidoodana dhowraan waxaan marka koowaad u mahad celinayaa barnaamijkan cidii soo abaabulshada cilmiyeedkan marka labaad waxaan fariin u gudbinayaa dadweynaha ama gaadiidley ha noqoto ama bulshada lugeynaysa noqoto gaariga tarfiga ah ruuxu tarfiga dalka Kenya ruuxu ganaaxa gaariga ma ganaaxa darawalka laakiin shakhsiga tarfigu ganaaxa maxaa yeelay shakhsigaas waxay ka dhigan tahay gaariga shil haduu geysto inuu asaga uu sabab u yahay dadka horta gawaarida tarfiga ku raacaya ee meesha aan munaasabkeena kursiga ahayn laga kireynay horta inay ka waantoobaan oo maaragtay gaadiid uu tuban yahay maanta gaadiidlaan ma jirto deegaanka ay kursi maran inaanan laga kireyn in horta taas fariin baan u gudbinaa tan labaad hadda magaalada Jigjigo kale waxa ku taala laba buundo oo looga talaabo wadadan dheer in looga talaabo looga tiragalay waa badbaado waa safety net labada buunta mid wiil walba ku hortaalaa tan waxay ku hortaalaa dugsiga sare ee Sheekh Cabsalaan maanta dad dulmarta labada usuuli weeyaan suulahana loo isticmaalaa meesha dadka safety net inay ka talaabaan looga tiragalay meesha maaragtay suulahana loo isticmaalaa taa marka waxay keenaysaa jahlinimo keenaysa in meesha gaari zabraago kale oo ruuxu lugeynay inuu ka talaabo looga tiragalay inta ka talaabada dadkeena way yar yihiin kii gaariga watay halka zabraaga ahayd oo maaragtay gaariga dadka inay ka talaabeen looga tiragalay ayuu istaagayaa waa mamnuuc sharci dhigaya zabraa in la istaagana ma jiro horta dadka meesha ka talaabayaan meesha ku haboon oo sharcigu dhigaya horta inay ka talaabaan si shilka ay u yaraado horta fariinan u gudbinay weeyaan kan gaarigana zabraaga dadka ka talaabay inuusan istaagin asagana wacyi gelin fariinan gudbinay weeyaan shilkan waxa weeyaan hay'adaha nabadgelyada iyo hay'adaha xafiiska كليح سبب ما ماركت كنترول كذا كان ركابكو جاري سارن حل باك سارن جاري تسارن ممكن مقالة جيجي كبح ووجه على الصعدة وده دحين أنت لسه الصعدة مجوجة ترافيك مجوجة من غير ترانسبورت جاري عدة سارن أيال رواينا كنترول درول كان تيشن كيس إنا كنترولان مسؤوليته حاجة سارن ده كان ركابكو جاري سارن جاري عمركم سديت الرافي إنه يراد وريا آير صع حفيزك جديدك وح مسؤوليتك صارت ودوين كدادير ماشي حولك تلابيان ماشي كابدا ماشي دلعاده ماشي wadada goolad ka dhigayaan inay ay ku dhijiyaan calaamadihii digniinta in laga helo ayadana masti weeyaan wax shilalka yareeyay ayay kamid tahay marka isku soo duuduub dhamaan hay'adaha sharciga iyo bulshada waxa leeyahay sida shilalka sanadka aan u yareeyeen in maaragtay aan si wada jira ugu qayb galnaa ayaan ku soo gabagabeynaa halkan waxaan fariin ugu gudbinayaa dadweynaha ku nool deegaanka Soomaalida dhammaan waxaan leeyahay cidii soo qaban qaabisay in wada tashtood cilmiyeedkan wada tashiga ah ee lagu yareynayo shilalka soo badanaya wixii laga hortagi lahaa cidii soo qaban qaabisay nooc kastaba ha ahaatee aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waana soo dhaweynayaa ta kale waxaan leeyahay dadweynaha waxaan baaq halkan uga dirayaa dadweynuhu haddii una isagu dad digtoon una noqonin oo sharciyada barta oo maaragtay kolka wacyigelinta loo sameynaya qaata si maaragtay wada jir loo wada qabto wixii maaragtay dhibaatada keenaya looga hortago de taraafik wax ma qaban karaa ayaan leeyahay dadweynaha ku leeyahay sababtoo ah taraafiku sharciga keligii ma ilaalin karo waxa loo baahan yahay
dadweynaha oo dhan inay sharciga horta bartaan hay-adaha sharcigaana waxaan baaq u dirayaa inay dadweynaha intay wacyi geliyaan baraan nidaamka sharci ee ka hortagga keenaya sababtoo dadka kolka intaa lagu baraarujiyo gaariga wajaalaha u socdoo kale 25 ruux haddii loogu talagalay dadkuna ay cilmi u leeyihiin uu ka dhigo 70 ruux waa inay dadku ku qabsadaan oo iyagu taraafiik ka noqdaan oo yidhaah waraa sharcigii baad ku xadgudbtay bartaa jooji gaariga oo ku yidhaah meesha khusaysay intay la hadlaan halkaa lagu ganaaxa ninka inta loo baahan yahay waa intaa ta kale xawaaraha loogu talagalay inuu dadkan mas-uuliyad adag baa ka saaran oo ku socdo loogu talagalay mas-uuliyadda haddii uu nin yacni mas-uuliyad aan qaadi karayn noqdo waa inay kuwa darawalka ag fadhiya intay qabtaan ay ku yidhaaheen jooji oo tallaabo cad ka qaadaan hay-adaha nabadgelyada iyo taraafikada iyo xafiiska gaadiidka iyo ganacsigana waxaan leeyahay dadweynuhu kolkay saa u shaqaystaan waa inay dadweynaha garab siiyaan oo dhaqan geliyaan waxay soo gudbiyaan u qiimeeyaan dadweynaha u shaqaynaya sida taraafiga kolkii la arko waa in aad iyo aad iyagana loo garab qabto dadweynahana waxaan leeyahay shaqada taraafik ma wadi karo dawlad keliyeed ma wadi karto innagu waddankeenna nabadgelyadeenna horumarkeenna shilka ka hortegisteenna nidaamkeennoo dhan waa inaan innagu dhammaanteenba u diyaargarowno darawalka fariintan u faraya waxay tahay war waxaanaad qaadayso waa shacabkaaga waa dadkaaga waa hooyada waa aabbaha waa ilmahaagii waxaad ka taxadartaa waxaanaad waddo waa caruur waa hooyo waa aabbo waxaan u sheegayaa darawalka inuu dadkaas u lex jeclaabo oo birtiisana u lex jeclaabo speed limitkana uu ku xisaabtamo oo uuna ku xisaabtamin lowdka wajaale dadka jooga dadka uu sii wado naftooda ha ku xisaabtameen lowdka wajaale joogayo inuusan ku xisaabtamin ayaan darawalka siinayaa shacabkana waxaan siinayaa waan u sheegayaa gaadiid wuu buuxaa lama waayiyo inaad idinkii iskor fuulfuushaan ood macnaha cidhiidhi gashaan lacagtiinni ha ku doorsanina intaasaa shacabkana odhan lahaa waa hagaag guud ahaan waxay tahay inoogu dhan barnaamijka isku xidhka booliska iyo bulshada oo toddobaadkan dabcan aan ku eegaynay dood cilmiyeed ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira shilalka kaasoo inta badan geysanaya dhimasho iyo dhaawac burbur ahaantii barnaamijkan oo igala qayb qaadanayeen hay-adaha sharciyada sida taraafikada xeer ilaalinta iyo xafiiska gaadiidka maamulka magaalada Jigjiga barnaamijkan oo idila socodsiinaya anigoo Cabdinaasir Siraar Guhad waa kaamiradii Garameys Intaayo Shucayb Axmed iyo farsamadii Mukhtaar Cabdi Yuusuf dhamaantanada waxaan wadin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.